taariikhda warbaahinta Soomaaliyeed ayaa kaalin mug leh qaadatay xilliga Soomaalida ay ku jirtay halganka gobonimo doonka waxaana jiray wargeyso ka soo bixi jiray magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho. haddaba Dr. Abuukar Cabdi Maxamed Boston oo ah suxufi rugcada ah iyo diblomaasi Soomaaliyeed oo degan dalkaasi Canada ayaan weydiiyay wargeysyada soo bixi jiray xorriyadda ka hor iyo wariyaashii ugu horeeyay ay Soomaaliyeed ee xilligaasi howlgali jiray. marka saxaafadu waxaad moodaa saxnuun inay qayb weyn ay ka soo qaateen halganadii gobonimo doonka ahaa ee Soomaaliya ay la soo gashay gumaysiga si ay u gaadho madax bannaanideeda. taasise inta aanan u gudbin waxaan doonayaa in xoogaha yar ka yara sheekeeyo inta aan madax bannaanida la qaadan wargeysadii ka soo bixi jiray Soomaaliya ee markaasi halganka horseedka u ahaa. waxaa ka soo bixi jiray Soomaaliya laba wargeys oo madax bannaan oo si gaar ah loo lahaa waxayna kala ahaayeen Al-Liwa iyo As-Sariixa. Al-Liwa iyo As-Sariixa waxaa kaloo iyaguna xisbiyadii kala ahaa SNL iyo SYL iyaguna waxay soo kala saari jireen laba wargeys oo SNL waxay soo saari jireen iyaguna wargeys magaciisu ahaa القرن الإفريقي. SYLna waa tii hor aan usoo sheegnay iyaguna waxay soo saari jireen wargeyska lagu magacaabo Al-Wahda. Ingiriiska ayaa markaa isna wuxuu aasaasay wargeys markaas uu kaga hortegayo dhaqdhaqaaqyada socda kaasoo loo bixiyay war Soomaali side laakiin wuxuu ku qornaa afka Ingiriiska. sidoo kale Talyaanigana wuxuu soo saari jiray wargeys isagoo loogu magac daray Corriere dello Somalo inkastoo uu ka hadli jiray guud ahaan Soomaaliya laakiinse danaha Talyaaniga ayaa isna si aada muxuu ahaa looga hadli jiray. haddaba dadweynaha Soomaaliyeed aad bay u dadaaleen suxufiyiinta Soomaaliyeed aad bay u dadaaleen berigaasi qayb weyn ay ka soo qaateen xornimo doonkii oo dadka kicintooda iyo abaabulidooda iyo ujahaynta xagga iyo muxuu ahaa halganka si loo helo gobonimo iyo ay ka tashi. suxufiyiin fara badan ayaa iyagu ka soo qayb qaatay oo u nafwaay arrintaas iyada ah. balse waxaan ka soo qaadanayaa qayb yar oo ka mid ah ayaan xusayaa suxufiyiintaas qaarkood. waxaa ka mid ahaa Maxamed Jaamac Urdoox oo ahaa ninkii ugu horreeyay ee wargeys ka soo saara Hargeysa sanad 1935. waxaa kaloo jiray Xaaji Cabdi Ducaale oo isna ahaa wariyihii ugu horreeyay ee ka hadlay idaacaddii Hargeysa sanadkii 1943. wuxuu isna wariyihii ugu horreeyay ee ka hadlay halkaas idaacadda Hargeysa. waxaa kaloo ka mid ahaa Soqorre Maxamed Cabdi oo isna ahaa ninkii ugu horreeyay ee filim qaadan noqda sanadkii 1974 Muqdishona ka bilaabay arrintaas iyada ah. waxaa kaloo jiray nin kaloo la dhihi jiray isagana Xuseen Cabdi Farmashiye ayuu ku magac dheeraa wuxuuna ahaa isna sawir qaadii ugu horreeyay ee Muqdisho ka bilaaba in wargeysada uu qaado sawirada sanadkii 1950. waxaa kaloo jiray isna Aadan Isxaaq Timcade oo isna noqday artistihii ugu horreeyay ama sawirlihii ugu horreeyay ee sameeya sawir gacmeed ee Muqdisho ku sameeya wargeysyadana ku taageera aqoontiisa sanadkii 1950 ayuu isna ahaa. waxaa kaloo jiray mudane Daahir Ibraahim Cabdi oo laftaydu aan la kulmay xitaa burburkii wax badan burburkii 19kii 91kii 92kii 93kii intaba aan ugu tagi jiray muxuu ahaa xafiiskiisa. Daahir Ibraahim Cabdi wuxuu ahaa isagana ninka ugu horreeyay ee madbacad wax daabacda ka hirgeliya Muqdisho sanadka 1952. marka intaasi waxay ahaayeen waxyaabihii ku saabsanaa xagga iyo
dhaqdhaqaaqaydii suxufiyiinta ee ay qaybta kaga ahaayeen halgankii loo soo galay xornimada Soomaaliya. dhinaca kale marka Soomaaliya ay qaadatay xorriyadda 1960kii waxaa sare u kacay wargeysyada Soomaaliyeed ee ku soo bixi jiray afafka Carabiga iyo Talyaaniga kuwaasoo baahinayay wararka la xiriira Soomaalida. xilliyadii dowladihii rayidka iyo milatariga ayaa warbaahinta Soomaaliyeed gashay casri kale oo muhiim ah waxaana kordhay tayada warbaahinta Soomaaliyeed inkastoo xagga xorriyadda ay ku kala duwanaayeen labada xilli. Soomaaliya markay xornimada qaadatay kadib 1960kii waddanka waxaa ka soo bixi jiray wargeyso fara badan. wargeysadaasi run ahaantii kolkii aan soo qaato waxaa ugu horreeyay Corriere dello Somalo oo afka Talyaaniga ku qornaa, صوت الصومال وافك عربي كقرا، Somali News waa jiray, Somali Review ayaa jiray, kuwaasna ingiriiska ay ku qornaan, Le Oriente oo Talyaani ku qornaa iyo La Tribuna oo isna Talyaani ku qornaa isna waa jiray, Kifaax, Al-Wahda iyo Al-Jihad iyo Al-Shacb iyo Al-Xaqiiqa iyaguna waxay ku qornaayeen ama ay ku soo bixi jireen luqadda carabiga ama afka carabiga ayay ku soo bixi jireen. marka Saxnuuniyo ma sahlanayn, Soomaalida qayb weyn ayay ku lahaayeen muxuu ahaa suxufiyiinta qayb weyn ayay ku lahayd muxuu ahaa halgankii loo soo maray xornimada maanta aan ku naaloonayn. macnaha 1960kii ilaa iyo 1991kii macnaha inta hore aan soo sheegay oo muxuu ahaa Corriere dello Somalo iyo Sawtu Somal iyo Sawtul muxuu ahaa Somali Review iyo Somali News iyo La Tribuna iyo Le Oriente iyo Al-Kifaax, Al-Jihad, Al-Shacb, Al-Xaqiiqa kuwaas waxay ahayd kuwa soo bixi jiray xilligii dowladdii rayidka laga soo bilaabo xilligii xorriyadda aan qaadanay 1960kii ilaa iyo 1969kii inta u dhaxaysay. marka waqtiyadaas maadaama wargeysadaan af carabi iyo af Soomaali afafka qalaad ay ku soo bixi jireen intaba xorriyatul qowl ayaa jiray oo saxufiyiinta waxay awood u lahaayeen in ay ra'yigooda cabiraan sida badan ay awood u lahaayeen. laakiin su'aasha aad weydiiso ah xilligii dowladdii kacaanka waxaa dalka jiray wargeys oo dowladdu ay lahayd oo ahaa Xidigta Oktoobar, waxaa lagu tarjumi jiray afka carabiga oo isna uu ahaa Najmda Oktoobar. marka si toos ah waxay ugu hadli jireen afka dowladda. xurriyatul qowl waxa la yiraahdana ma aysan jirin, walow ay jireen wargeyso kale oo dhinac socon jiray wargeysadaasi, laakiin intaba waxay hoostegi jireen xukuumadda ay hoostegi jireen. waxaa jiray muxuu ahaa Heegan oo Cali Rooble ay qori jireen ayaan filayaa hadda sida inta aan ka xusuusto. waxaa jiray oo kale At-Taleeca iyo Horseed. Heegan isniintu soo bixi jiray, Xidigta Oktoobar iyo Najmi Oktoobar iyo maalin kasta ay soo bixiyeen, kuwaas anigu qorayaashooda ayaan ka mid ahaynba. laakiinse Heegan wuxuu soo bixi jiray maalinta Isniinta. Allahu mustacaan At-Taleeca iyo ama Horseed wuxuu soo bixi jiray Sabtiduu soo bixi jiray, waxaa soo bixi jiray Jimcaha aan iraahdo. waxaa kaloo soo bixi jiray Jimcaha wargeyska Ogaal ee xisbiga oo aan ka xusuusto suxufiyiinta iyagana qori jiray berigaasi Generaal Bashir Goobe aan ka xusuusto. marka xilligaasi waqtigii kacaanka ma jirin muxuu ahaa sida berigii muxuu ahaa rayidkii madax bannaani u buuxda oo suxufiyiinta ay u qabeen inay aaraadooda ku cabiraan ma aysan jirin. laakiinse waxaad moodaa xagga nidaamka in uu aad iyo aad ugu wanaagsanaa, sababtoo ah waxaa 1972gii la qoray afkii Soomaaliga. markaa waxay isugu soo urureen wixii oo dhanba luqadda Soomaaliga ayaa markaasi maamulkii oo dhan
hay-adihii shaqaalaha dowladda iyaga ay afka soomaaliya ku shaqayn jireen. waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeerayaa qaybta labaad ee taariikhda marxaladaha ay soo martay warbaahinta soomaaliyeed. sidaasi iyo nabadgelyo.